furitaanka wadooyinkan ku xirmay xasaradihii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa qayb ka hirgelinta heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee laga gaaray qalalaasahaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray wadooyinkan oo furitaanku ku soconayo waxayna qayb ka tahay dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho. waa ilaahay mahadiis maantay inaan ka soo qayb galo furitaankii wadada ee dabka hoostiisa ahayd saacadan wixii ka dambeeyo waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho u sheegaya inaan ku wareejiyay mas'uuliyaddii magaalada iyo wadooyinkeedii iyo ammaankeedii taliya xijaar wabillahi tawfiiq waana mahadsantihiin waxaan rabaa nabadda inaad sugataan oo nabadda gacana bir aad ku qabataan marka walaalahay kulli waa mahadsantihiin taliyihina waa kana ku wareejiyay dadka Soomaaliyeed ayay u tahay guul in magaalada Muqdisho dib ay u furmaan wadooyinka ku xirmay xasaradahaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay wada ilaashadaan nabadda. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo wadadana aan furno sidaa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed isgoyska Mirnaay Soomaan meeshaan taagna waa ka codkaas rabin ka maqlo waa kaas marka waa mahadsantihiin billahi tawfiiq idinkana ajra iyo xasanaad Allah idinka siiyo. Nasra Bashiir Ali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.